cisbitaalka xayaad oo kamid ah cisbitaalada waaweyn ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxa ay ka warbixiyaan adeegyada caafimaad ee kala duwan ay u qabtaan bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn waa kuwan qaar kamid ah dhakhaatiirta kala duwan ee ka howlgasha cisbitaalka xayaad oo ka warbixinaya adeegyada caafimaad ee kala duwan oo uu bixiyo cisbitaalka Al Xayaad magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil kana shaqeeya وكنا تخصصي حنونada indhaha ku dhaca iyo daaweyntooda sida aynu ka war hayno xanuunada indhaha ku dhaca waxay ku kala duwan yihiin dadka daahooda iyo deegaamada mararka qaar xanuunada indhaha ku dhaca waxay ku kala duwan yihiin sidaynu sheegnay daada iyo meelaha maxaan ku idhaahday goobaha marka xanuunada ku dhaca tusaale ahaan dhalinyarta ama caruurta waxa ugu badan wadankeena sida xasaasiyada Allahumma salli ala Muhammad khaladka xagga aragga ka yimaada ama refractive errors waxa la yiraahdo sidoo kale xagga da'da waaweyn ama qofku marka 40 sano u dhaafo waxa jiro kale xanuunada caadka biyaha indhaha furma ama la yiraahdo glaucomada sidoo kale imka dhawaan waxa soo badanaya xanuunada la tacalluqa chronic disease-ka ama haday noqoto macaanka ama haday noqoto dhiigkarka kuwaas oo saameyn toosan la leh maxaan ku raaday xanuunada isha ku dhaca ama qaybta dambe shabakada isha ku dhaca marka waxyaabahaas oo dhan waxa loo baahan yahay in laga warhayo Allahumma salli ala Muhammad oo qofkii ku xirnaado goobta caafimaadka oo mar walba yimaado waalidiinta oo kale hadii aan yararka caruurta ka hadalno waxa jira mararka qaar ama caruurta ku badan xanuunkan la yiraahdo allergic-ka ama VKC-ga marka xanuunkaas waa xanuun inta badan ilaa da'da 15 18 20 meelahaas ayuu kaga tagaa caruurta marka inta ka horeysa waxa weeye waxa loo baahan yahay waalidku inuu ka warhayo oo waalidku maxaan ku idhaahdaa ilmihii yaraa goobta caafimaad ee indhaha u gaarka ah mar walba ku xidhnaado una maxaan ku idhaahdaa joogteeyo isticmaalka dawooyinka isagoo oo kaashanaya dhakhtarka indhaha ee markaa ka agdhow mararka qaar waxa dhacda waalidiinta dhibta ku timaada waxa weeye ilmihii yaraa ma dareemayo in aragtidu hooseyso Allahumma salli ala Muhammad tusaale ahaan ilmihii yaraa isagoo aragtidiisa gaaban tahay waxbarashadeedu ku daraya ama uu ku biiraya heerkii uu wax baran lahaa dadna hadhow toole waxa ku imanaya difficulties ama waxa ku imanaya maxaan ku idhaahday la jaan qaadi waa inuu ardaydii u la jaan qaadi waayo dadna waalidkii ama macallinkii hadii aan stage ka dareemin ay maxaan ku idhaahday khalad ka saarayaan ilmihii yaraa imka tusaale ahaan maalin ay toole waxa yimi ilmayar oo dhan ilaa 12 jir wiil ah marka ilaa class 3 class 4 buu marayay waalidkiisuna markaa muu dareensaneen dhibaatada jirta markii aan wareysi ka qaadnay ilmihii yara horta baaritaan aan u sameynay aragtidiisu waxay ahayd 30% bay marka waxa weeye intaas muddada inta leeg lama dareensaneen ka bacdi markii muraayadii qaatay aragtidiisu u soo noqotay Allahumma salli ala Muhammad uu wanaagsanaaday runtii magacaygu waa Dr. Jibriil Colaad waxaan ahay dhakhtarka xanuunada guud oo muddo badan ka soo shaqeynayay gobolada kala duwan ee Soomaaliland hadda waxaan joognaa Buuhoodle waxaan ka wadnaa campaign waxaan ka shaqeynaynaa xanuunada ku dhaca indhaha iyo xanuunada ku dhaca dhegaha labadaba waan ka shaqeynaynay sida xanuunada ku dhaca xoqadaha oo loo yaqaano luqadda qalaad loo yaqaano tonsillitis oo caabuq ku dhaca cumaha halkan tonsilka ku dhaca kadibna waxa lagu arkaa ciyaalka ka yar 10 jir yaa lagu arkaa xanuunka muddo badan ayaan ka shaqeynaynay xanuunada bulshaduna waxay u baahan tahay wacyigelin hadda waxaan ka howlgalaynaa hospitaalka Al Xayaad Community Hospital oo hospitaal aad u faa'iido weyn ku yaala magaalada Buuhoodle waxaan bulshada ugu bishaareynaa inay si fiican uga soo qayb galaan campaign-ka socon doona muddo kooban kadib waxaan leeyahay bulsho kasta waxay u baahan yihiin wacyigelin iyo dardargelin iyo ka warhayn say uga hortagaan xanuunada faafa
iyo xanuunada aan faafin ee lala noolaado sida macaanka, dhiigkarka iyo xanuunada kale la midka ah. dhinaca kale waxaa isaguna halkaa ka hadlay oo ka warbixiyay adeegyadan caafimaad uu qabtay bulshada Dr. Cabdirashiid Xasan Yuusuf oo ah maamulaha Al-Xayaad ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Hospital Buuhoodle waxaan ku wargelinaynaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka Cayn iyo nawaaxigiisa in cisbitaalka Al-Xayaad uu bilaabay laga bilaabo taariikhda maanta oo ah 13 bisha 5 2022 dhakhaatiir kala duwan sida dhakhtarka indhaha oo wax ka qabanaya daaweynta indhaha, fiiqista, qalliinka, cabirka. sidoo kale waxaa isna goobta ku jooga cisbitaalka doctorka ENT-ga isna wax ka qabanaya cunaha, dhegaha, sanka. sidoo kale waxaa jooga Dr. Marian Shalaamin oo iyana ku takhasustay xanuunada ku dhaca haweenka iyo daaweynta guud, waxna ka qabanaysa cudurrada ku dhaca haweenka sida qubsiyaha, ilma dilanka, macaan xanuunka, caado wareerka iyo dhammaan xanuunada ku dhaca uurka jirta iyo urjiifta. Cisbitaalku wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan sida adeega gurmadka degdega ah emergency-ga, shaybaarkii, daaweyntii, waararkii, dhammaan qalabyadii kala duwan oo dhameystiran. sidoo kale cisbitaalku wuxuu bixiyaa adeegyo firiya maalmaha qaar sida macaanka oo kale dadka qaba, dhiigkarka oo dadka qaba oo kale, haday noqoto cabirkooda, haday noqoto taligalyadooda kale. waxaan ku wacyigelinayaa bulshada in adeegan oo ah hadda indhaha iyo ENT-ga nagu jooga outreach wax la yiraahdo inay ka faa'iideystaan iyagoo muddo kooban 14 casho ah joogi doona haddii aan leedno cisbitaalka Al-Xayaad Community. Maxamed Cali Bile, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Buuhoodle.